بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوال channel كي كمل سيت official. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وكاسا. قلت يوتيوب كي عنيقة حرب بيل وإحنا سوق قلنا وكم مشغولة. عاو يعني أنا يوتيوب كي فيديو أسوق قلنا وكلفة وحياتها وحان ربي برنامج أو معلومة كذا عن مقدشنا كهذا أو يعني عيارتوي كوفر قلبي عيارتوي يقول نادي يعني عيار وحيسي أو يعني عيارتي مركب أما تي عيارتوي اللي بدأ عيارتوي يعني أو لصوب بحي بنانك لسؤال يعني إن يعني سووا خوش ما لو رقمي أو ربوش يو شيكو عن عادي إنه سمي عيارتوي كوفر قلبي لو بدأ عيارتوي وسميد وعن ميكرا يعني سي هدي لو في ريارت أنا عيبا لحد كفرنا عيب تاسوه dadkaas dad yani martino ah oo anaga maanta koobka aan martigelinayno martino ahaan yani si hadii loo fiiriyo gobolkooda uu ahaa laakiin anaga martino ahaan saasay taa yani in meeshii si qurux badan waa loo soo dhaway laakiin si qurux badan lagu masuuqatin oo yani markii ay baxayeen dagaal iyo in la tuuriyo iyo in wax la gaarsiiyo iyo in calaamadii ay wateen xataa taageerayaashii laga jeexjeexay iyo sheekooyin aan fiicnayn xataa la xabadiyay سيف يعني كبرنامج كان هدف تماما ونحن ولا دي بنادي واحد جالسين يعني دتك الواحد جالسين جو نفهم ده دتك ماشي مجوك دتك قبل بنادي ضد جنة اوكي ولا دريمنا معناها موجودة هدف معناها ايه دريمنا يعني وحني دريمنا يعني ولا دريمنا واحد لينا مرة لا يعرف ما تماسيه نفهم سيدي ذيك الانترنت ولا ليه مرة والبو وهذه قرب كودة وحرالي كنا قلنا عادي كوفر بالبد أنا شو بقول منها يعني بيدبها الدميل في النجمة جرتو أنت هذا كله يعني أنا قب وممكن ويعني سومالي وضن كله كم تهاد يعني مركب ماشي مهمة ده أول ما ده عيارتوي ده يعني كوفر بالبد أما تغيير شو ده أيقبا يعني وحيد تبح قلب الشو إن ولا له يعني كبد أي wada qaybsadaan yani xifaal tamaan muhiimadu labada qof markaas labada gool muhiimadu qofka guuleysto markaas la arko marka wallahi waxaan dhihi karaa si aan macnaha fiicneen aan wanaagsanin waa dadka dhan walaalo waa moogta marka ani ahaan gobolka banaadir waa ku dhashay wallahi aadaan ugu qiyooday yani aadaan ugu murugooday markaan arkay yani dadka walaalaheena ficilka xun oo yasida كبر كيس ويني يعني مسلم يعني أنا قاعد هذا أهلهم يعني قبل كود هذا تجيهم ماتا إن صص نقول السماء ما جعلين ما جعل يصندون واحد جعل يصند ما مرك يعني ما أهين إن يعني يجو يعني قبل كان مرتين أو أنا يعني إن فرحات يكبر عشان هي ما شاء الله ما هذا أي يعني نقص وتيو وعاد ولا سكبر يعني كبر وعاد يملو marka waxa ani ahaantayda fikir ahaantayda waxaan jeclaa yani marka kubadda saa ay u dhamaatay oo yani shirkadda ay soo gudbiyeen banaanka la soo baxay ayaga si gaar yani intii yani gaari la saaro casharaf loo sameeyo niyada loo dhiso si fiican loo martiso exactly oo yani iyagoo faraxsan markaas iska laabtaan laakiin dadkii dhan oo yani anaga martino ah in kubadda ay nala qaybsadaan xaggan u yimid yani markii baskooda ay raaceen in la tuuriyay oo la dhaqdhaqay 18 qof meesha la geeyo oo dhaawac waxaas inta laga arkay yani dad walaalahayna yani anaga saas ku sameeyay wallahi horta waa sheeko kale waxaan wax iska qoran way ahayn laakiin ciyaartooydayna iyo dadka gobolka banaadir ku nool wax fiican ma sameeyo horta marka kubadda la dheelaayo waa horta waa xifaaltan gooni midaas horta waa meesheeda laakiin Soomaalida inta badan waxa iskaga darsan kubadda iyo dagaalka caadi qofkan macnaha waa haduu ka badiyo iyo hadaa ka badis waa walaalka fahmin garoonka macnaha dhaxdiisa kubadda sidii dhaxmaraysa dagaal ay ku filnaado laakiin hadaa markaas macnaha dagaal caadi ka dhigtaan Soomaali macnaha wax walba dagaal ka dhigaan marka Soomaalida macnaha ma ahan inay u bedelaan wax walba horta Soomaalida hadirtan walaalka hada dhaawacday hadirtan maxaa hadir adiga faa'iido ah ka yeeshay goos adigana macnaha waa ka badisay oo waa ka guuleysatay fahmin asiga kama guuleysay xitaa haduu ka guuleysan lahaa xitaa inaad iska soo baxdo oo aad tirtirto ilan garoonka waa cadi madow kubadda macnaha hadana hadii garoon labada koox ayagoo wada faraxsan soo baxan marka niyo waxa leeyahay Soomaalida kubadda iyo dagaalka caadiga kala saara exactly midna waa dhihi lahaa yani ibn hadee dhacda xataa yani ciyaartooyda
koonfur galbeed oo kale in yacni hadalla xanaf leh xataa markaas ay ku dhaheen ciyaartooyda amba taageerayaasha macnaha halkaa joogay yacni ma ahayn yacni in waxay ahayd muhiimadda xataa sabar iyo dulqaad ay muujiyaan maadaama ayaga marti loo yahay oo gobolka martigelinaya koobkaba ayaga ay yihiin ma ahayn xataa yacni inay dulqaateen ahayd yacni haddii xataa hadalla xanaf leh amba yacni waxyaabo xataa aan fiicnayn yacni la dhehe amba dhega hadal xataa iska ah inkastoo yacni bini aadan la wadiyo oo qof walba gaf ka dhici karo marka yacni muhiimaddu waxay ahayd inay sabraan yacni haddii xataa markaas because dadkan gobolka waa looga badan yahay musoo beente yacni dad yaroo kooban oo program meesha u imaaday ahayn marka muhiimaddu ma ahan yacni in markaas dagaal la siiyo amba markaas sila yaan fahmaysa laga fiican yahay markaas lagu sagootiyo oo intaasoo qof dhaawac laga dhigo oo yacni iyagoo iska mural hadda xataa waxaa maqla yacni wasiirkooda xal hadlaa arkay oo dhahaya xataa yacni program dambo amba ciyaar dambo noocaana oo gobolka banaadir martigelinayo anaga kama qayb galayno yacni waxaas maxaa keenay waxaas waa dhib ma fahmin yacni waxaa keenay in yacni dadkii dhammaay oo sharafta lahaa oo walaalaheen ahaa oo noo yimid oo yacni isdhexgalka iyo baashaalka iyo walaalnimada naga dhexaysay in yacni si yacni laga fajacay oo lala yaabo yacni lagu sabootiyey oo la ciiriyey marka waxaas waa qalad anaga gobolkeenaan joognaa haddii xataa si kasto ay dhib amba qalad xataa lacaala nagu sameeyaan annaga dad yacni waxaa ahayn dad walaalanahay inaan yacni iska sabarno oo yacni waxba far aan yacni nuuxin oo yacni waxba rabasha aan ku samayn oo dhiirigelino oo casharaf u sameyno oo iyagoo iska faraxsan oo maadaama kubadda caddi madow tahay waa la iska badiyaa waa caadi xaafadahooda gobolkooda ay ku laabtaan ani saas ay leeyahay waxaan ku leeyahay si fiican marka run ahaantii hadirtaan macnaha walaalaheena maxaa hadirtaan tacsiib markaas inaan tacsiib u dirto gabadhii oo markaas macnaha walaalaheena kuwa hadirtaan asbitaalada jooga iyo kuwa kaleeto macnaha hadirtaan ayagani qalbigooda macnaha dhaawac soo gaara maxay tacsiib diraysaa walaalka horta tacsiib meesha ma taalo maxaa markaas yacni walaalaheen inaan murugta la qaybsano oo yacni fahmaysaa aan ilaahay u barno oo yacni inuu qalbigooda ilaahay u qaboojiyo yacni iyaga naftirkooda waa careysan yihiin ilaa hadda sababtoo ah yacni shakhsi yacni xataa dowladda kamid oo ka hadlay dhibtaas yacni ma jirin maadaama iyo dhibkii meesha uu ka dhacay oo ahaa yacni gobolka banaadir yacni dadkii waxa sameeyeen dad yacni iska taageeray iyo waxay rabaan wax iska naqdaano laakiin qof ka hadasha horta aan weli ma arkin marka waxaan dhihi lahaa wallahi walaalaheen dhibta waa idinla dareemaynaa murugadana waa idinla qaybsanaynaa intii yacni dhib soo gaartay maanta oo ma fahmaysaan maanta meeshaas dhib ka soo gaartay waxaan leenahay ilaahay ha u boogayo oo ilaahay caafimaad tamaasiyahaa barmadoobaatan ilaahay ha ugu dhigo insha allah waxaas waxaa waaye wax yacni aan fiicnayn ahaayeen insha allah umad dambana ma dhici doonaan insha allah iyagana waxaan leenahay yacni iska samra oo yacni walaalihiina xumaaday waaye yacni ha ka daba xumaana si fiican marka waxaan leeyahay mar walbo kubadda iyo dagaalka iyo siyaasadda inay laba kala yihiin waa farxad qabiil bulsho kubadda qabiil ma lahan muxuu ahaay qof maanta oo adiga kubadda iska leh ma lahan qof siyaasi oo kubadda iska leh ma lahan qof maanta oo meel degan oo kubadda iska leh ma lahan kubadda waa adiga isdhexgal bulsho hadii waa farxad wax la isugu imaaday iyo muhiimadda in la ogaado labada gobol yacni qofkii macnaha labada gobolkii macnaha kubad fiican amba xirfad wanaagsan yacni muhiimadda intaas ahayd laakiin dagaal in la iskugu bilmiyey ka dhigayso dagaal in la iskugu bilmiyey markaas macnaha kooxaha wax la iskugu bilmiyey dagaal maahan waa inay markaas kubaddooda dheelaan ay wada farxaan marka run ahaanta waxay leeyahay soomaalida kubadda fahma dhaqamadeeda iyo sharciyadeeda aad iyo aad teeda kale waxaan leeyahay ciyaaro badanaa soo dhaca ka hor ciyaartan koonfur galbeed iyo gobolka banaadir yacni rabush noocaasa amba dad wax la gaarsiiyey ma jirin waxaan dhihi karaa waxaa waaye ceeb weyn ay gobolka banaadir ku tahay yacni in yacni dad walaalahooda oo marti u ahaa oo gobol kale kaga yimid yacni saas loola dhaqmo jaanis aan yacni la siino intaas yacni dhiba la gaarsiiyo marka calaa kulli xaal koonfur galbeed waxaan leenahay gobolka banaadir waxaa waaye wixii yacni lagu sameeyey karaali naqda mar walbo dadka ma wada xumo yacni dad afartan qof oo xun waa iskaga wada jiraan marka insha allah inta gobolka banaadir yacni ku noolnay dad yacni idin wada neceb amba idin xumeynay ma ahan mar walba insha allah aad marka waa kaasaa waxay leenahay mar walba garabkiinaan taagannahay mar walba waxay timi walaalaheena
mar walbana macnaha dhib iyo dheef waa inaan wada qaybsanaa jeclahay maadaama Soomaali ka wada dhalanay aan Soomaali wanahay Soomaali wanahay ma lihi Soomaali ka wada dhalanay Soomaali hadana wanahay oo hadana hal diin wada leenahay oo hadana hal af aan wada hadlayso marka runaanti ma ahan aniga markaas macnaha inaan gacdo isku noqono marka Soomaali waxaan leeyahay meel walba ay joogto Soomaali waa Soomaali Soomaali waa walaalo adduunkaana wax lagu yahay sidiisa yani adduunkaana waa loo maal waa laga tagayaa marka insha Allah ma dhici doonto mar dambe yani iyadoo yani saan intii ku bado isdhaxgal la isku yimaad yani rabush noocaana iyo hawlo kale meesha ay ka dhacaan insha Allah ilaaha ka bareena Soomaalidana ilaahay horto haas wada jeclaysiyo yani isku mid ma ahan waxa arkay yani qofku dhaha qofkaas isku qabiil man yihiin maxaa yani shaqo ma kulli macna waxba igama gelin marka yani qabiil meesha ma taagna Soomaalina waa walaalo oo yani ilaaha walaal ka dhigay marka insha Allah dhamaanteen xaq ilaaha nafso dhamaanteen aan iska jeclaysiyo dad walaalana meel aan kala aadna yani ma jirto marka insha Allah أنا برنامج كهكذا يعني كسوق هو